لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها. لا تشبع النفس من دنيا تجمعها، وبلغة من قوام العيش تكفيها. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها الجار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. بلا روحا جعلنا كبلابه لمن يرى إن يد أدتشيه عن ظهره إن شاء الله. Schedule key in the row sameeye after Salat al-Maghrib. The lecture will be in English. So dadka waayeelka inayna qulooda niyadda u dejiyo oo laga yaabo rag badan oo ka fadhiya inay raadaan manaasicda af Soomaaliga ma garanayo, inaan iyagana ilaahdo bal maanta waynu sheekaysan wixii taa ka dambeeyay waynu isxorayn. ama waa la yaqiri inaan af Soomaaliga aqaano ودعايات دائما كواحد لهذا نوحنا كقولت لنا سي والله generation. أما هو نسكح حرام ده وانكبح. أما ده قلنا أصلا كوبي لكل هو اللي قلتهم إيه. ولا لا يروح أن تعالها إنك سوقت بيسقور اليوم. إن المسألة مهمة ما أنت وحكت عبته. مسألة دنا ما هم مسألة ضدك الصوماليات وخاصة. وإنك إنوحرا ومسألة أهل السنة والجماعة خصيصة. حالة أمضى منطقة هدية الإكتان فلسطين وكمل آيتهين وهذه إنه أقول ريكي إنه دعي صوماليا، أفغانستان، باكستان، عراق، يا سوريا، ليبيا، يا مصر، بورما، يا سنترال أفريقيا. مين ولد اكتب بمانت من كده ورن شري مسلم وليبا نقول مقعابي شري سني وحلوه الشيء إن الله مريم ومانت قال يا مسلم با وحن أصول دكتان إن نكي سني قال الله ورن شري إن الله بابي إيوه. ولمن ذا المقال وقت كان حاضر كاي عصري ميل ضدك أحمدية نقول أولوية أما أجا خانك أو نقول مريء ميل كون نقول محرق أو نقول مقرن في تاريخ العصر بد إسماعيلية إلى ميل نقول بابئية عاد بالأوية بإن إنه مقال ضد شيعة وميل كل انتي. لكن مشارق الأرض ومغاربها ونضبة
dadka maanta loo heshiiye waa ahli sunna waljamaaca. ayaan daro waxaa intaa inoo dheer, haddii maanta qof shiiciya la taabto eeraan baa boodaysa oo xanaaqaysa, laakiin haddii muslimka sunniga la gumaado oo la mariyo qof su-aal ka weydiinaya ma jiro. waxaan joogay December-ta Nigeria waddanka la yidhaahdo, rag shiica oo Nigeriyiin ah oo lagu tilmaamay markii dambe la soo ogaaday inay 8 milyan ay gaareen. ragga shiicadii waa rag shaqaysto oo xarfaan oo si wanaagsan u dadaalo. waxaa la ogaaday inay 8 milyan yihiin. raggaasi qaraar bay gaareen inay highway 401 oo kale iska xidhaan, ay dhahdaan maanta waanu ka tallaabaynaa magaalada waddanka waa la kala xidhaya. ayaan daro waxay dhacday ina chief of army inuu meesha soo marayay. waxay yidhaahdeen, waa ninkii hadda militariga haystay, ayaa waxay yidhaahdeen waxaanu doonaynaa inaanu marro. maanta shiicay u xidhan timaadeen, lama taaban karo. 2 saacadood iyo bar ka bacdi ayay qaraar ku gaadheen inuu militarigii meesha qasab ku maro. qaar baa rasaas lagaga garrif siiyey, way dhinteen. eeraan baa dhawaaq oo hadashay, madaxweynihii la soo hadashay, caankee u dhacda. dadka ahlu sunna ee boorme la gubi jiray waa la gubaa. dadka boorme ee reer boorme ee ahlu sunna ayagoo nool xitaa sharaf uma aha. ilan qof dhintay oo la dilay waxay macno yeelan lahayd, laakiin ninkii oo neefsanaya oo ruuxii ku jiro, naftu ay ku jirto, ayaa sida asxaab al-ukhduud inta god loo qodo lagu ridaya, markaasuu ku bislaanaya. Central Africa waa maqasheen, suuqa ayaa lagu gowracaa. dadka muslimiinta boorma markay qaxeen ay carruurtii iyo dumarkii la qaxeen, meesha ugu dhoweyd ee meelahay ku dadaaleen inay tagaan waxay ahayd Philippine iyo meesha la yidhahdo Thailand. ilaahay wuxuu qadiray marka dadkii xuduudka dhaafay ee muslimiinta ahaa, ee rag iyo carruur iyo dumar inta badan ay ahaayeen, maati, carruur iyo dumar, ina la xaraasho oo la iibiyo. inantii yarada dhabanka lahayd ee lagu tuhmayey inay qurux yeelan doonto, ee 12 jirka, 13 jirka, 14 jirka iyo wixii ka weyn, waa la xaraasho. inanka iyo inanta ugu qaalisani $4,000 bay kalifaan. waa ina dhan oo gashaantiya ayaa la leeyahay suuqa la gelinayay, waa qiimaheedu waa $4,000. ilmaha yara lagu arka caafimaad, waxaa la odhanayaa ha la baadho oo keliyaha ha lagala baxo oo beerka ha lagala baxo. qiimaha ugu jabanna waa $1,000 oo lagu iibin kara ilmaha muslimka ah. cid u dhawaaqday iyo cid u barooratay iyo cid u oydatoona ma jirto. laa bawaakiya lahum. su-aasha meesha taalla waxa weeye, war ilaahay qur-aanka wuxuu inagu sheegay inay nahay khayr al-umma, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas. maxaa dhacay? xageebeena laga soo galay? saxaabadii nabiga sala allahu calayhi wasalam ayagoo ah adilla, waxaan uga jeedaa adilla ma aha sharaf darro uma yahayn, laakiin nambarkooda yara. ummadda ayuu nabigu sala allahu calayhi wasalam ku yidhi adilla markaa siduu qur-aanka u sheegay. marka saxaabadu meel bay joogeen aan aad iyo aad loo ixtiraami jirin, la yasi jiray. cadowgu dabadda ka joogaa ay moodi jireen inay gacanta sida markula u mari karaan. ummadda ayuu nabigu sala allahu calayhi wasalam uga yara taataabtay mustaqbalkooda. markaasaa wuxuu yidhi
تداعى عليكم الأمم أمضها أي يسكوكين جيري دونتها التداعي وحويه مركو قف ويرده كما تداعى الأكلة على قصعتها سيدتك عنتظر عوني عنتظر يسكوكين يران ومركا إذنك بعنتأه تتكنوا ويدعوني وذيك رقيب سنيا من صحابي مركا ايتاس مري ويدي ولغي كري واي ويوحوا اوغا ايغو صدح بقول يصدح يتفبرا في معركة بدر قريش تيرس الصوغ ورسطي إن الجمادين أي تضباط النكد تضباط النكد قبصدين وحوا اوغا ايغو إن يرى إن عربت الجلجلين يبدلين نظام كودي تقاليد كودي مبادئ كودي إلى الأحسن نبي في سؤال بكويت سكوع لي وحي أو من قلتنا يومئذ يا رسول الله ما لم تسيدا نوبل سنة يوم نوكل قيب سنة يوم من يرى يا رسول الله ما ترد يدا يا حقيبا نلقصوا قليل إلى رجبان ما هيوان لكن يعني وحي عجيبة معركة الأحزاب أما الخندق تبا يلاحظه أيها قطفان تضبكم لقوت المامو يا قريش يصدحكم لقوت المامو تضبكم مسود دولات كيمي ومدينة المنورة دوش سود الدبي أصحابتي النبي صلى الله عليه وسلم والخندق هين روق دبال إلى خندق بقتان نبي مكة وحو أركض رجي مهاجرين تها بحقه لمن يرد ورج إسرائيل يعني المعرض لكن رجي أنصارت يود الخود إلى صوق لي إلهي سبحانه وتعالى عليك النقضي إن قلوا ذا قريشي إن عكت مريصه نبي وكي ويقوليس ولغي كريواي وحوية لمكة قضفان رجي وتي والحجر وإذا جيست حوالان إذين قينية وصلنا والبا تمرت آنو بيرنان قيد كسين ناي اسكن نقضى أنك يا قريش نقع إحباحا ورأي حكيمة وسوچي صلى الله عليه وسلم ويالك إذا نقل من ميسو عرورت إذا مرن ميسو أنك عدي لي مينو بارو أن نقاني نايو وأن نقولنا سند والبا تمر ديارا وأني ما إيماننا وأهلي وناكسن وحول لكن يقور السوق وحلا تشان يا رجي وبن كرهاي لبدي بوية لبا سعد بن عبادة يا سعد بن معاذ وإن قيس النبي صلى الله عليه وسلم وحيكون هذا يا رسول الله أوحي هو أوحاك الله إليك أرنتني ما أرن إلهيك وصو وحي ولي بايو تمناك أنك حق ميرانك هذا المتهدين وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم مسألة والمسألة لا يكتمي أم شيء تصنعه لنا مسوى أرن أنك حضانو أنصار آنو نهي أدنو سمينسي قال إنما هو شيء أصنعه لكم وأرن عليه يقصوا قضي وحي إلهي قصوا وحي ولي معها وكان نك سعد بن عبادة سعد بن معاذ عفوا أيها قال يا رسول الله كنا ونحن وهؤلاء على ضلالة أنك يا رجل مولي وحنو هيدد لنصر نعبد الأنصنام سامدا نعابد جر حبلها يغنوان وآسي جر ونسكر إبسن جر وأنك نفت سكين جر أبعد أن هدانا الله للإسلام وعزنا بك نعطيه من أموالنا وعلما مرقى سبول عين كاس والله يقول ما مركي لها من السوحة لي أديك أنا أصوك هدري أيان مرقى السنة تمرت يدا والله يقول برقى أن عين كاوضاهين بولي إذا تمر أن سينه أما أنه كئيبي نمو يعني مثل كلمة للميتشلين والله ليس لهم اليوم منا إلا السيد من ركى سيفا نرى حيثا
marka ansaarigani asagoo ninka saxaabiga asagoo xaaladda og ayuu nabiga su-aasha weydiiyey yaa rasuul rag maanta miyaan yada caynka nala balliqsanayo wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam bal antum kathiir waa badantiin buu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam walaakinakum guthaaun ka guthaa'i sayl waxaad tihiin buu yihi laakiin xunbada webiga saaran markuu roobku uu doo laga yaabaa in dhallinyaradan aanay garanaynin weliba dadkii dee tuulooyinka deganaan jiray markuu dee doox soo rogmado ee barkadaha gacmada loo jeexdo gacankaas soo gelaya barkada waxaa dusa ordi jiray xumba yaroo macnoo bilidaqsayo bilaa macnaa ku dheeda taasaa la dhahaa carabida guthaa ka guthaa'i sayl waa xumbada yara bilaa macnaha nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi walaakinakum guthaa'un ka guthaa'i sayl maanta marka aynu isweydiino war adduunka intii meeshii ugu wanaagsanayd buu ilaahay naga siiyey cadceeb iyo waxaa solar energy uma baahni ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna siiyey nicmad oo batrool ah haddaynu muslimiin aynu nahay ilaahay wuxuuna siiyey dhulka meelihii waxa laga beeraya meelihii ugu wanaagsanaa wax allaala iyo waxaynu cid dibadda naga joogta uga baahannahay ma jirto ummaddeena innaka ugu liidana war maxaa dhacay ma dulli ilaahay ina dullaystaba oo mahaanad iyo dulli ina saaray baa kowde mise waxbaynu ka bedeli karaa waxaan u arkaa anigu markaa walaalayaa anaan jeclayn hadal ku rafto mas'aladan sii jiijiido innaka u baahan inaynu meelo badan wax ka hagaajino oo laga tiirtiiriyo runtii waxaan u arkaa mas'alad bay naga maqan mas'aladaasoo ah al-ukhuwata fi illaah walaaltinimo ilaahay dartiya maanta nin waliba maanta wuxuu jecel yahay inuu garabkiisa uu dhigo inaadeerki ama kii tod ugu dhowaa ama ninkay isku degmo ahaayeen waanaynu ognahay nebigu sala allahu calayhi wasalam fii saxiixi muslim wuxuu noogu sheegay wuxuu yidhi man abطa'a bihi camal ninka camalkiisu yowma alqiyaamaha marka dee siraadka ragay sida leyrka u dhaafayaan qaar sida dabaysha u dhaafayaan qaar sida fardaha u ordayaan qaar intuu nin ordi kale uu u ordayo qaar ay qurdhoodu beer ku soconayaan wuxuu yihi maalinta man abطa'a bihi camal waa ninku camalkiisu uu reebo buu yidhi lam yusric bihi nasabu tolkiisa iyo qabiilkiisa iyo waxaa ka soo jeedaa hore uma sii riixayso walaaltinimadii laakiin way naga maqantay nebigu sala allahu calayhi wasalam axaadiid fara badanoo fii saxiixi muslim sunani abi daa-uud iyo qaar la mid ah wuxuu nebigu ku sheegay wuxuu hi almuslimu akhulmuslim nin qofka muslimkii walaalkii waa muslimka mu odhanin ninkay isku reer yihiin ninkay isku jinsi yihiin ninkay isku arag yihiin ninkay isku degmo ay yihiin ninka ay isku luqad ay isku af yihiin inta muu odhanin nebigu sala allahu calayhi wasalam almuslimu akhulmuslim laa yadlim ma dulmi karo walaa yuslim inan cadowna uma dhiibi karo walaa yakhdil meel uga baahanyana kagama dhaqaaqi karo wuxuu raaciyay nebigu sala allahu calayhi wasalam fii riwaayad kale man kaana fii xaajati akhii kaana allahu fii xaajati qofka baahida walaalkii u dhaqaaqee u jeesta ilaahay tiisa ayuu daryeelaya yani baahida haddaan anigu maanta walaalkay xaajadiisa iyo baahidiisa aan u dhaqaaqan u jeesto ta aniga ay haysata ayuu ilaahay daryeelaya subxaanahu wa tacaala wuxuu u gaajooday hanigiibaa bixin waaya sadakadiisii muslim gaajooday wuxuu u gaajooday ninkii ilaahay xoolaha u dhiibay ayaa u diiday dowladaha muslimiinta u fiirsada tisciinaadkii haddii ay bixin lahaayeen zakada baatroolka oo qura
ما كلامها قالوا تسعيناتي 1996 أي اللي حسابي حبي بحين لهاين زكاة وحين نقول لهاي مركب ولي مركين عوجه سيلا جاء صد بليار صد وإن تقول لي ما كنا نقول لي تقول لي مرجع سوحي إيجان يعني الدين على هذا ندون إنه دين عسر رئيس حسابته يعني واحد بس كلمة هاي الدون دن يدولة دن يمسلمين دن مسلم قارشوا للموتشرين اسكت أهل السنة حتى أهل قبل من قارشوا لكن وحين نقول قد محبتي إنك بحدين أي إنك مقد وايو نور بتيس أي دنيا كدريه نبي صلى الله عليه وسلم حديث كي عمر بن الخطاب سوري في مسند أحمد وغيره بسند حسن والنبي صلى الله عليه وسلم شارع ووحي يرف إن لله عباد إلهي الضوان أي سميست ليسوا بأنبياء ولا شهداء الضوان إلهي ليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي معها منك النبي كان وحل لقوية قالنا إنه يهينين إلهي وقامين أيه وأن معصية الله أقلي وأن ذنب الله أقلي وأن وحكى الله أقلي وهدو يرقب دمي وضد الله يرب هكذا لقوها قاتين أيه ويوحي نقول النبي صلى الله عليه وسلم مركو اجتهاد كيسو وقالي في أثار بدر تذكي بدر وكقب قبطي أي قال أي مسألة إنه السيد دايه ويأخذ منهم الفدية ما كان للنبي الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض نبي كما يقومين وكما يتوسنين إنه يشاء أسرى إنه ضل هايستو كما يقومين بالليل ولعنة النبي صلى الله عليه وسلم لولا كتاب من الله إليه سبحانه وتعالى هداني إلهي أريكا حكمي ولو حكمي على بين قال لهيد بالليل يعني نبي مركا أنك أزوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهيد كان وحا ليلي دو أنك صبحي غير كيسي يا قويس كيسي يا عروتيسي ونفتيسو أصو صارسو إلهي الأخرى وقلت رجلا إنا نقومين والله غيابا أهل جيسا يا عروتيسا يوم القيامة إنه في ليين أرقم نبي مركا وحولي إن لله عبادا ليسوا أنبياء ولا شهداء إلهي الضمون ليها نبينا معها شهدنا معها يخبطهم الأنبياء والشهداء من مكانتهم من الله يوم القيامة لكن يوم القيامة وحكاه ناس يهدك المدى صح نقطة تعبيرا رجلونتي كي يرد رمية حكى إلهي كتشوغا النبيين يا شهداء دي بعرنا ورجل حقيس الدرجة دي سيداو قال الدرجة ده وإلهي بآد قدوانيا من صحابة مركب وقرأ وحولي صفهم لنا يا رسول الله رجع هلكا استهديا النبي إلهي وهبي ينكي شهيد كان نفتي سهوري هلكا أي كهناس رجع بالإيت المنبولي رجع سواء أيوم وحول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنهم قوم تحابوا بروح الله من غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها وحول ضدك سبوير وضد إلهي درتي السجع لاضي إلهي درتي السجع لاضي بغير موله أيضا لكتشرين بويري أرحام بينهم ترنموا إلى ليش كتشرين كسر النبي صلى الله عليه وسلم ومو قراني رجل وحي السجع لاضي رجل ماضيرة من بعد ما أيضا وتوحن أخرين وحن منك الصومالية صدح بضوية مادة ورجع أصلي لها ودين وجيل وإنادر صدح بأنك الصومالية حصلوية مادة صدح لصدق سقطان والله بدور وروح دورنا يا المادر نمدي يجري بليلي دين تبغى كأنه كأنه اللي جبهاش هذا وصل لغدا معي حكى باشا سنقول شيرين labadaas oo qaatan haday isqabtaan baa la yiri geela iyo inaadeerkiina wuxuu qaadanaya inaadeerka ayuu ka dooranaya nabigu wuxuu markaa sallallahu alayhi wa sallam min ghayri arham baynahum
raggaa isjecel dhiig iyo tolnimo kama dhaxayso waxa isu keenay ma aha waa inaadeerkay waa inaabtigay waa reer hebel waa isku qolo ma aha waa ilaahay darti wuxuu ku xigsiiyey nebigu sala allahu calayhi wasalam walaa amwaalin yatacaatawnaha xoolo iyo tijaarad u dhaxaysaana meesha ma taallo waayo de ninka aa shuraaka tihiin ama maqaaxi wada leedihiin ama hodheel wada leedihiin ama meel yar wada leedihiin ama taxi aa shuraaka ku tihiin ama dhul yar aa wada leedihiin dee maslaxad baa meeshii taalla waa isjeclaanaysaa taasina wuxuu uhi nebigu sala allahu calayhi wasalam kuma jirta buuri meesha sala allahu calayh nebigu markaa wuu sii kordhiyo wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alaa buu yihi maalinta ina wujuuhahum la nuur وإنهم على نور لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يخافون إذا خاف الناس اقرأوا إن شئتم ألا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان الله وحلو ما أنت وحلو حان دين بشيء يقولي ما أنت إلى وجه هذا نور بصاريا نور هو يكسر عنيا وفي رسالة وجه يقول ما نور أيه نور هو كنت عليه قاعد المركة يا أفلامته النور اللي جاي الأرض إن كان رجع يهب لا يهب يوحي سمية فيلم عجيبة أو وحى الله يسوي إمام يا فيلم كيبا لا بس محل هذا he walked on a red carpet بكل مكة carpet عص يكسر على الناس ومركة الليموزين هكذا صوت شوشيا الباب كالوفرة هكذا carpet عص بكسر عنيا إلى يتبدأها جليه نبي يقول صلى الله عليه وسلم وجهه يقول ما قرأ يوم ما نور يويلي وإنهم على نور نور ما كسرانيا يعني نعمة إلهي سبحان الله نور ما كسرانيا بوي صلى الله عليه وسلم ما نفهم لما نوريه تأملنا والوري اللي بقيه رجع سوا كآمن يدو مركز خدام دونتان والآخرية مركز أيد إلهي ألا إن أولياء الله تذكر إلهي دورتي لا خوف عليهم ما أبصريا ولا هم يحزنون من مروريا يعني وأرنا عجيبة وقالت لماذا ورد إنك هذين ضد مسلمين أين نهي رنتي وإن ما أنت أب إنه غفوراتي ونبدأ قيسي إن أنت المسلمات دي الوقف سنة إما بغفر حمين يو فلسطين أما سوريا كما حمانسي المهيّن المسلم كأه قاجو أنجبي سبحان الله إلا إلما حدوث كبختي أمام مدفع قاطو وإلما مركا يقفت كل عضي لكن إلما يرى الميدة أو أنجبي وحلا أنجبين وقاجو خصاصة كل عضي النفط مركي ويكابحيسا أغلق قصة دمي النفط ويكابحيسا لكن إنا إلما يرقاجو لقد له أدقوا إلما هاقي كنبا هذا انتين هوس درايف ثرو بسي مارينا سي صعد يسو صعد مرة بالبنية بيجل with cream cheese هل كان hot chocolate milk كان له بالبنية لكن إذا ما يرى السوريا بختية أدينا ما نقول دقائق الميس ما نقول دقائق الميس إنما دقائق وهي الأخوة في الله هي محبة وماشى كم قد درنك ولماذا يحمونك إن تابني يماشى وكم قين من هلاقي إنه ومضي محبا إنه هلاقي مايان إلا أن يكسر نقنطها وأن يصدرينه وحنونك ورالك هيستا أن درينه نبي صلى الله عليه وسلم أرجو إنه قد حقوق المسلمين حقوق الشاك إن حق الله يسكليه إن الله يستعلاده وحاصل إنك إنه مقرى وحمليه مركا وغليا حديث بن جعل أمر قصير عجيبة وكل علي أحد السلف أيان جعل كسر قنانده لقد يابعين قصده إذن كفر البلطي هرنا أم قشين لكن النبي إلهي سبحانه وتعالى وحوني لضدك حسوسي وايو حسوسي وحي أنفع ضدك مؤمنين قصدنا وانين من الصالحين وعلماء السلف من الزهاد السلف أها نكي لو رجل أبو إدريس الخولاني رحمه الله وعكاشا كان ينكاس إنه مالين دمشق وصوق علي مسجد
masaajidada Dimashq ka mid ah wuxuu la kulmay markaa dad meel fadhiyo xalaqad fadhiya oo laakiin ayagu iska sheekaysanaya qaala fa in ikhtalafu fi mas'ala haddii mas'alad isku khilaafaan waxay u gudbiyaan nin dhalinyaro aad u qurux badan qaala wa kaana baynahum shaabun baraaq athanaaya nin dhalinyaro ah oo haybad ilaahay siiyey oo qurux ilaahay siiyey ayaa arrintaa loo gudbiyaa qaala wayasturuuna can amrih qaraarku gooyana laguma soo celiyo faqultu min janbi ninkii ag fadhiya waxaan ku idhi man haada waa ninkan hadalkiisa sidaa loo maqlayo la ixtiraamayo laga dambeeya waa kuma qaala inahu mucaad bin jabal ninka sidaa looga dambaynaya waa saxaabadii nebiga sala allahu calayhi wasalam ka mida wuxuu ihi waan iska kacay meesha waan ka baxay masaajidkii maalintii dambaan soo kallahay buu yidhi masaajidkii baa la isri intaan subaxa la adimin adugu masaajidkaa sii tag waxaan ugu tegay buu yidhi mucaad binu jabal oo masaajidkii igaga sii horreeyo meeshii fadhiyaba wuu tukanayaa waan sugay qaydii waan dhammaystay si wanaagsan buu u tukanayaa mar allaaliya markuu salaadii ka baxay ayaan se soo hortaagayo qibladiiba iyo asaga ayaan u dhaxeey waan u foorarsaday waxaan ku idhi waa niyahow ilaahay dartii baan ku jeclay walaakin nebigu sheegay moogtay min gayri arxaamin baynahum walaa amwaalin yatacaatawnaha ninkani inan kama qabo asaga inan lagama qabo xoolo u dhaxeeya ma jiro labada nin laakiin muxuu ku jeclaaday inuu yahay mucaad binu jabal inuu yahay saxaabada nebiga ka mida sala allahu calayhi wasalam radia allahu canhu wuxuu yidhi marka inta aan dhammeeyey buu intuu kor iisoo jalleecay ayaa wuxuu igu yidhi allah ilaahay baan kugu dhaariyey makaa daacad ba maanta waxaad odhanaysaa walaalka ayaa adigoonay dhabka ahayn oo dee ka soo gu-in kashka iyo laabtawalkii soomaalida oo halkaa dibnaha ay kaa saaran tahay ayaad ka odhanaysa ya akhi I love you for the sake of Allah waxay naga noqotay caado ninkani markaa mucaad wuxuu yihi warwa ilaahay baan kugu dhaariye jacaylkaasi ma kaa daacadba mise afka ayay kaa saarantay allah buu igu dhaariyey waxaa may wallahi waa iga dhab mar labaad buu igu celiyey ilaahay baan kugu dhaariyey jacaylkaasi ma kaa dhabba war waa iga dhab ma saddexaad buu igu celiyey war ilaahay baan kugu dhaariyey ma kaa dhabba war wallahi waa iga dhab markaasuu haddaba ibshir waan kuu bushaaraynaya maxaad igu bushaaraynaysaa inii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam mora waa laygu yidhi waxaan dhegta ku maqlay buu yidhi inuu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu yidhi wajabat maxabati afar ayay maxabadii ilaahay waajib u noqotay ilahay markaa sagaas ka hadlaya wajabat maxabati maxabadeedi waxay waajib u noqotay lilmutaxaabiina fi wاlmutajaalisiina fi wاlmutazaawiriina fi wاlmutabaadiriina fi afar ayay ilaahay subxaanahu wa tacala yihi jacaylkaygu waajib u noqday waan jeclaanaya afartaasi waa ayo almutaxaabiina dadka ilahay hortiisu jeclaada ilahay kuwa haynaga dhigo waa dadka ilahay hortiisu jeclaada wax kale maaha waa maqshaan xadiis fi saxiix albukhaari wagayri ninkii intuu tuulo ka yimi tuulo kale ku socday ونبينا صلى الله إلهينا سبحانه وتعالى عفوا إلهينا سبحانه وتعالى ملك أصادر ونحن أفرسا ننكا ننكي وسفر كتير ويقول حاجات كصعدة تولد عن كصعدة ومحات كدونيسا من هبل إلى أعضاء أيام الصعدة من كاسبا معروف وكوسمي ألك نعمة كربوها ونك النعمة معروف يا شباب كالحياة ما إله ترتيب نوتشي عليه halkaa markuu intaa yidhi ninkii malagii ninka iska soo dhigay wuxuu da waan ku bushaaraynaya annay waxaan ahay malag ilaahay soo dirsaday bal u fiirsada malag dhan iyo cirka laga soo diray malag dhan oo la yidhi bini aadan isu ekaysi oo ninkan soo warayso ilaahayna u ogay xaaladda
من كان صور يسو ومحو سفرك أقل وجعيل إلهي درتي تعايلك إلهي درتي وحلوات الأمريكا وحواجب أنه قلنا صدق إلهي يوم القيامة في صحيح مسلم وغيره إلهي وحني أين متحابون بجلال كو إلهي هرطي سج يعني برطي يسج على هذا ما في صحيح البخاري ومسلم حديث أبي هريرة نبي واحد لقى صوري حديث كأنه ابنهي 7 تضبط إلهي يوم القيامة هرين وحكمله ورجلان لبن وإلهي درتي يسج على هذا ولا موراك يو عد ودنها ما كويسة أما عد ما قرنسا عد إلهي درتي وجعش قرنسا عد بإصبع ويسكن نقو ولا شيء يسكن نقو بل عد فن إلهي درتي وجعش هاي ما قرنسا هدي أدبوغا بعد أدمسكح هذا الركروكتي أدأفكار كا أيوه ذاكرة دي بقول نقطي سي أرد بقول أتكانس قفل إلهي درتي وشعش ويأتكانس محبتنا معها هذا الاسكبل المعنى وقفل نفط هذا أمور إلهي درتي أما إلهي درتي وشع لا نسيد بكاس قف كان المساجد هذا صهر رأيه قرآن كبرون بوهيا دين أيو كل رقم حق أيو كتاقين وينقو عرقتي تاسوا واجب طلبوا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم وحيرك والمتجالسين في dadka aniga aawaday ilaahay darti u faqoda fariista ilaahay ku maanta inaga dhigo waxaan ilaahay darti uu fadhina ilaahay ku inaga dhigo maanta waxaan malaynayaa afarta uu nabigu sheegay ta inoogu dhawaatan way waxaan ogahay qofka halka jooga ee mu'minka ah ee saalix ah aad ogtay inaan wali xaraan aanad ku arag aad ogtay inuu masaajidka ku jiro aad ogtay inuu qof saalix yahay inaad ka dooranaysid inaad ka dooranaysid taas xaqiiqa inaad isku toltiin oo isku abtirsataan baad siisanaysaa ninka subhanallah waxa cajiiba مبدأ الصحابة أي أركي واحد يعني ورات النمذج عجيب كاي صحابة معركة دي يعني صوتها تابنين معركة الخندق قصة إن مصعب بن عمير مركينين كواركنين أنصاري ولكن حد كل عليا هذا ولكن هو يدي أبيه أعلان ولكن يصدوا لي وقريش للسعودي وأبو جهل يا أبو لهب يا أمية بن خلف صراعي أيها كونين أنصاري حد كل عليا ولكن بس أكثر وساسو آلي منك أنصاري هم كل حالك قعد كيقول نيكن هو يلي العقبة ضمي حيساي منك بأن حوار أنا وراك هايا ورانا هو إلا باشا ما يقول نيك ما وراك هايا منك أيها وراك أهل قواء أيوه وعد إله كو عد إله جهل نوح محاله مقصد عليه السلام إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح عليه المهل الدولة نوح عليه السلام المهل ما أهل قال وعمل غير الصالحين ويدينا لنا طلبات المتجالسين إلهي درتي فريستك فندي شيء وأشيكيست ووالنينو هالكاسو أنا كتلماني ومركي وضع فريسانين انت تيم هورتن تقام فرديكو ديرلك كما ديريراني وما قاحيك ماشي انت فريسان كماشي كيستان وحمل يوم مقدشة يا هجيسة يا كذا عيان ما بندان بينه كهذا السياسة دي مثل الصومالي السياسة دي مثل الصوماليين السياسة دي مثل خاتمة صدق حاجة من لباديو نسأل الله حسن الخاتمة انت مي وحوي قال إلهي درتي أول فريسة وإذ حسوسية عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه عمر بن عبد العزيز markuu shaqada dawladda dhameeyo group yar buu lahaa markaasuu oran jiray barkaale ilaahay xasuusin oo aan wada fadhiisan caruur iyo dumar iyo siyaasad iyo guur iyo adduunyo midna kama hadlayno war godkana ku sii socono bal aan xasuusin tasabaxaad wuxuu nabiga sallallahu alayhi wa sallam wal mutazawirina bi ilaahay wuxuu yiri iyo dadka aniga dartay soo ziyaarta sidii laba nin aan tilmaamay markii xadiidkii sahih bukhari
تأفرادنا وحيري والمتبادلين بي فتكوحي سسية إلهي درتي وحي سسينيا وقفوا وحي أسينيا إلهي درتي والله يا الوقت قرينا مغربنا ونهاية وكان فوضى إن الصوص عالي لكن أيها رأينا السؤال بدل في دحق حيان وتعيشني لذكرني فيه انت سكسر قنانا دي إلهي سبحانه وتعالى عيبتنا هأسطر إلهي سبحانه وتعالى ودنا يشنا السور دوي إلهي سبحانه وتعالى يبقى كهكا النوج عدمها النوغة إلى عليه وأيها النوع حفظه إلهي سبحانه وتعالى فتنك الدونك إن قبر دوها إلى إلى عليه وحد مضك المسلمين كما تأينا الله الصور إن دكتية إلهي نبت بعديه وجزاكم الله خير. شبكة إنشادكم العالمية تقدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. wax su'aalaha ma jiraan kullay su'aalaadii sii jiraana anybody has questions su'aal hal su'aal waxaan ismaqalno hal su'aal baa la soo gudbiyey oo uu walaalkeena weydiiyey sheekh oo yiri shiicada muslim baa mise waa gaalo جزاك الله خيرا. hortayna kan ciidba magacaabaynin astaan iyo sifaad lagu yaqaano dadka gaalada ayaa jira ciddu doonaha ahaado magacu doonaha sheegto sumadu doonaha ismariyo qofku odhanaya qur'aankuma dhamma oo qur'aanka ilaahay ku yidhi inna naxnu nazalna adikr wa inna lahu laxaafiduun ma dhamma waa nin ilaahay beeneeyey taasi waa mid ka ninkaas muslim ma aha inkastuu muslim sheegto iska sheegto wuxuu doona laakiin muslim ma aha tan labaad ninka caaya caasha أمنا عائشة رضي الله عنها dadku waxay muudaan abubakar iyo cuthmaan iyo saddexdaa ayaad moodaa inay dadku ay la weyn yihiin waxaa ka sii weyn caaisha waayo ma yeesayno mana xaqirano meeshay taagan yihiin abubakar iyo cuthmaan iyo xurmadda ay leeyihiin radia allahu canhum laakiin caaisha qur-aan baa ku soo degay suurat nuur aayado suurat nuur ku yaala ayaa ku soo degay إلهينا سبحانه وتعالى براءة ديدو برتكو الشارع إن البريء أي تهير مركانينك عاشا عاية أما حفصة عاية يعني دمرك النبي صلى الله عليه وسلم عاية نينك سيرت الدين ما هيو عجيبة يعني من حكمة إله أفير صبر قف هدو قبل مؤمنة والشريفة هدو عاية حكم كوا محي سويلك الباشا معها يعني شريعة وحي الله يقفك مؤمنة يعني عفيفة أو محصنة عاية غيوي زينيستك إن لك الباشا ويك إلهي سبحانه وتعالى بالحكمة سألة تذكر حكومي كري واي أيجيبوا اسكسر لدينا يجيب اسكرباشان هو كان انتي قاطان لقد استدعى يعني هو أمر عجيبة قف السجي عذابة واسكرباشية
ما هو عادي وعاشق وصحابيات كاي عايان دولة مسلمة oo naga qabanaysa ma jirto marka ilaahay wuxuu ku fitneeyay in ayaga iskarbaashaan sideetankii laga doonay in ka badan ay sadacaan subhanallah inta dhaafeen bay xitaa midiyo ay isla dhacaan waa ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu nagu sheegay qofka mu'min aaya ee cambaareeya in la karbaasho beenin mooda jooga kalma karbaashi karasi laakiin ilaahay wuxuu ku fidinayay iskarbaashaan dadka caynkaasi dad muslimiin lagu sheego ma aha waxaana nagaga filan sidaan soo arrin ku soo dhuftay inuu qofku inuu xuruf qur'aana uu diido ama kelmad iska daa waxay ku hadlayaan waxay yiraahdaan quraanka saddex qaybood baa loo qaybiyay laba qaybood waa la waayay oo waxa masaxay sunniyiintii baa masaxday ahlu sunna masaxay qaybta saddexaad waa qaybtan haysaan labadii qaybood ee kale iyo qaybtan haysana waxa haya ninkii buurta galay inaba ilmo yar buur galay ayaa haya diintu ma dhamaayay quraanka la helayo waxa maanta laakiin jira dad fara badan oo muslimiina oo waliba Soomaaliga waxay baa lagu yaqaanay Soomaaliga wadigii lagama heli jirin yahuudinimo iyo shiicanimo labada midna laguma iman jirin waxaan isticmaalsaday laga yaabo in halka mid Kirista laga helay laakiin yahuudinimo iyo shiico isku mid bay haayeen Soomaalida inako Ali iyo Faatimo iyo intaba jecel waan waajib maanta laakiin telefoonada igu soo dhaca aniga shakhsiyan su'aalaha ugu badan la weydiiyo waa laba ilmahaygi ilaahay ma aaminsana ilmo Soomaaliyeed ilmihii ilaahay ma aaminsana iyo inankaygu shiico noqday ama inan gabadh ima ninkaygu shiico ayuu noqday ima la joogi karaa ninkii qabay wuxuu qaatay madhabkii shiicada oo wuxuu aaminsan yahay Abu Bakr iyo Umar iyo Uthman ila nacdaro wuxuu aaminsan yahay Abu Hurayra inuu beenala aha wuxuu aaminsan yahay in Aisha zinaysato dhalinyarada guriga soo gali jirtay markuu Nabigu sallallahu alayhi wasallam ka baxay guriga hada waa Nabiga Ilaahay reerkiisii alayhi salaam ninka ma la sii joogi karaa samay qurbahan weylaadka aynu ka dhaxlay waxa kamida dad fara badan oo Soomaaliyeed oo madahibka qaatay marka waxaan leeyahay in cid doono iyo sumadu doono ha sheeg nabi abtirsada ma aha muslim ma wallahu ta'ala wa يا شيخ سؤال نصير عسينا فرقوين بدنا كليهين صور يا لا تكن كلام سيان لا تكن كلام فرقدها أي ليهين أنت نروح كجرنا يو فرقد أي نهرنتي من وضع ملك الرمجر فرقد أي نوضع حتى كوا بوديها جراعة يبقى قارب كوي يرد كتشرتا لكن ما كان معناه إذا فهموا من وين بيكون تجلسه وإن كان بوديها جراعة ينتو ده بدن واحد من سنة واحد من سنة ما يكون العليا واحد من هذا خان الرسالة صدق الله كاتر على كلمة وجدنا وحوي فرنتي وخيامية بصفر وخيامية كالعالي أنا هو ملك جبريل وحنا نلاقيها فرنتي إلى هاي أسر إيبي الذي أبقي علي أي قرى سميو نبي محمد بن صعب وأرني وين تحس وحجالس أن نقول علمي إلهي أيام وحلا لقتها بنية وده إلهي مكان جاهلية سبحان الله هذا إلهي وحنا قال مكة علي وسجال تشيرنا إن الورد يبه الرسالة بين الليل مكة تصاب بقفل عند ملها قاركود كمين شينكرو مكة روح الله وقفك المسلمة هدينا دوك سنة تكنسا كلتو كذا لكن كنت ضبح حيلتين أما لا تكتيد وما أركين وإن رتع سيرين هاك سنة والله أعلم
جزاك الله خيرا. قبل 3 سؤالات بسؤال إيبان إن كستو وقت قلنا قابين هاي الشيخ إنه نوصل قابين إن شاء الله. سؤال شهر واحد تهي شيقو ولا شيء وهو يدي قويسي أنا محيرين كرا لعقنا ما أقدر كرا. سؤال شكرنا واحد لا هاي. اوكي خلاص هاي نوصل الرسالة حبر إلهي سبحانه وتعالى قفل المسؤولية بوصارية واجب لما رئيس قبر لما واجبك على صارة قفل واحد نقدوني واجب كي صار إنه قد بيه حبي هو يدو ينتدي أي شرطه ينتو إنه هو يدو شرطه يقويس معه ينتو إنسانتو ينتي أي قويسي فوقيسو ay dayriso xilli ka goosato inay inantu hooyadeed ku samayso sidaa ma ah waayo yowmal qiyaama waxaa lagu weydiinayaa war waajibkaagii ka soo baxday lagu odhan maayo qofkaas muxuu sidaa u sameeyey ama maxay kuu dayrisay ama maxay kuu goysay ama maxay kuu jartay waxaa lagu weydiinaya taadii ma ka soo baxday qaybtaadii iska daa tiiso way u taada asaga su-aashaasiiya adigu taadii ma ka soo baxday inanta markaa su-aasha soo weydiisay 2 cilaaqadood bay dhex taalla وعلاقتي أيضا يهوي كدحيسي يا علاقتي أيضا يوراشد كدحيسي علاقتي أيضا يوراشد كدحيسي إني أي حليل سوي أي وراشد لا حليل سوي وتعصب ومسألة مهمة علاقة وراشد يهوي كدحيسانة ومسألة كلا وراشد وطالق لكن وحنا في لي إن أنت سواش سوق قرطي إني وراشد أي أدكتو وأوانيسو أي ترى إلهي كعبسو والنبي صلى الله عليه وسلم وحي نوشيلي عرض إلهي وحي كنت اللالانتي عرض والدك ودو والدك كون عرضه إلهي وكون عليسين مرقدتك هذا يسرى هذان واد عبادة سنسا واد شقي سنسا زكاة بحينسا واد سو حاجيسا حاج بدو عروتنا واد درياشي والدك هوليدي أبيض أي وقضي يسلام والا مي عرض إلهي وقضو صارا هذا إله يكون مركا إن أنت ودك أنت لكن أيضا ولا شيء وحين حاجة يسوي. سؤال شكله وحوي لعقت وحلقوا برتو أصبت ليرة ما بنات هاي. وحنا ترتقى عندما إذا كل قرض جر نفع فهو ربا. كل قرض جر نفع فهو ربا. دين فائدة كنبا والربا وحرام دين فائدة كنبا فائدة سوقية وحرام شريعة المركات وحين نتاقل رنتي مفترق الطريق وكو علماء آب يقول ناقشة وحين هذين وحاجرات بديار بل يرير وعنوان آب فربضك أركي وأن مخاتئوها وأيضا بنيرة شقيسة يسكون كنا سكبحية أو زبنان مالين قادم أما يستون اللونك جماعة دبلمية لكن هو بنيرة كرتلة الله ينمى مركات تاسوا ماينورتي ماجورتي هو محي بنيرة دو مقليا يسكون إلا العق هايستان لعقتنا هو الربا هو حرام مركا مشيت على إنتان وحوية haddii aynu nidhaahnaba culammadu markaa ardaydu ma qaadan karta dayn dee marka waxaynu leenahay hay ka noqdaan kuuli oo jaahilnimada ku jiraan ku shaqaystaan waayo cilmigi wuxuu noqday ribo gal haddii aynu ribo u xalaalaynana dee dembi wuxuu ilaahay xaaraantimeeyey fa'danu bixarbin min allahi wa rasuulih ayaynu xalaalayno waynu arrin ka tallaabsanayba culammadii markay aada u shireen weliba culammada North America ay ku jiraan Salah Sawi ay ku jiraan culamo farabadan caynkaasi waxay ilaahdeen lama ogola inuu qofku qaato student loan waxaan la yiraahdo lama ogola wallahu a'la wa a'lam na'am جزاك الله خيرا جوار ولا لها كبدا waxay leedahay sheekha oo la isoo duceeyo muraad baan leeyahay إلهي سبحانه وتعالى وحين ويدي سننا إن أنت أولا شيء
مسألة داس أي تصارت إلهي كقابة إلهي ونخفيفي إلهي مراد كده دو خير قل لي هي حسي إلهي سبحانه وتعالى هو كريم هو حليم هو غفور ويحلو بهذه إفكا أخي إلهي سبحانه وتعالى هو اليري وجزاكم الله خير من دو قدام بيسي سؤال ولا ما لاقيه قبل بقى وحي شيخة ويديسي الصيبان حرنا هاي بيتري وحل إيجا باهي هاي ما حيتها ما كان مرضي بيسده حلوغ باهي إناني قرية كبحن إلا للحاجة باهمو يعني إناني قرية كبحن وحكذا أو وحبلا معنى إيو زيارة إيو وحلو مؤقرة حلوغ باهي هاي إناني تزين لأي منانس قرقرحن وحنا إيو الدهب إيو وحسكب الظلم حنا أنا يسمرين إني منها كو إيكاتو قرية دا loogama baahna inay maro lagu xidhato loogama baahna inay kaarbad ka laabto loogama baahna inay suurada gidaarka suurada ay dejiso waxa midna loogama baahna laakiin waxa looga baahan yahay gurigeeda iska joogto ilaahay ku cibaadaysato in halka ilaahay ka u cibaadaysato halka iska joogto ayaa looga baahan wallahu a'lam wa jazakallahu khairan. Okay, this will be the final one. Okay, go ahead. waad maasantahay sheekh saciid khudbadaadii waxaad ku soo jeedisay in sunnigii maanta dhibaatooyin lagu hayo oo shiicadiiyo arrimahooda haddii shiica la taabto waa laga hadlaya laakiin sunni imika soomaalidu inta badan waa muslim wey hadda 100% waa sunni abaraa ka dhaca dhibaatooyin baa maanta haysta dadkeennii waxaanu darisnahay waddan sunniya oo qaniya sacuudigu waa sunni waana qani dadka abaaraha iyo gaajada ku dhimanaya ma maqlisid iyagoo wax u soo tuuraya in haddii jeer waxaad maqlaysaa oo dadkii dibadaha joogay ee reer galbeedka inay dadkaasi ay taageeraan maxaa ku dhacay dadkeennii muslimiinta sunniga ee dadkan wax ugu qabilaaya نعم قلت سبحان الله وتلك الأيام نداولها بين الناس ما علم بني بالوجرته dadka maanta aynu ilyarada ku eegayna aynu leenahay waniyo waxay noogu soo tuuri waayeen maalin baa jirtay ay soomaalidu zakada siin jirtay maalin baa jirta culamada soomaaliyeed ay fatwo soo jeediyeen oo ayagu soomaaliya zakada lagu keeni jiray maanta laakiin iyagii baa laga sugayay inay wax bixiyaan inankan wayna saaran mabda baan idiin sheegaya oo ku saabsan oo ku salaysan adduunka maanta jooga waxa ogaataan dawladahan iyo dadkan aad tuhmaysaan in kastay dawlad tahay anuna aan dawlad magacaabaynin in kastay dawlad lagu sheego oo meel yar ay xariiqatay meel tiri waa maabkayagii ama waa khariidadayadii caalamna ay leedahay qofna kursi la saaray in constitution meel uu ku qoran yahay in dawlad isku sheegtaa waxaasoo dhani waa shaqaale dad bay u shaqeeyaan wax mustaqil oo dawlad meel taagan keligeed ma jirto dawladahan ay u shaqeeyaanna awaamirka bixiyaan ayuunbaa lagu socdaa waxaan uga sheekeynayaa shalato cabdirashiidna wuu ila socdee waxaanu tagnay Calgary nin muslina oo suuriya oo aanu weligiis xitaa sawirin ayaa igala soo hadlay waddan islaam wadamada lacagta lagu tuhmaa oo baatroolku sida uga soo tufmayo ninkii wuxuu yidhi waxaan maqlay wadaad baa tahay jooga Canada waa new sponsorka isku kala qor 5 qof baan u baahnay mid eega dhiman isku kala qor ima yaqaano waxaan ku uri waa new waddan muslim joogtaay waxaan aanu ku suganay xaaladeedu caynka tahay ilaahay baa ogi war halkaas ka joog wuxuu anigu Suuri baan qararka la soo dejiyay waxa weeye dadka Suuriyiinta inaan wadanka loo ogolaanin dadkii joogay wadanka laga saaro ee Suuriyiinta wanikan waa dhakhtarka ilkaha waa 3 jir maaha nin dawladii ay gelinayso pension iyo laga baahanayo in dawladdu mas'uuliyad shaqaysan karaynin in gabadhiisu waa gabadh yar 25 jira
وقلوا الشقي سنة لكن محل يدي وحال ضدك سوريا لقوتهم ضدك دولتها المقعيد عليه وحبوا مقام كرام أدوه مركز هدي أبلاد هاي دولتها شاركين أقدقن ونحوح نقصو إن كان نقصو توران لنكن أقدقن ونشقارا عدبو شقيا أمرك إلا وسوقاته وحكسو قالي مايا أما كنا ولي مهلين مركا وقت كيسو تي إلهي وإحنا كلا ففرم موياني عد إنه مقالي ما جرتو مركا حق إلهي هلو تشيستو إن دولة كلا إيو تشيران إيو دولة العقل إيو دولة لغوتهم هكا نسكبقنو إلهي سبحانه وتعالى الباكي سهل قراعه تاوح إنه ودوي ما جرتو نمكن يمبحين كلا وحبادو وحبحيه أساقب هذا مكعيا ساقب قديسي أي عيركا لقدو بنيه لكن شقاوة مسكينة وبكل سياسة شقاوة سوكا الله سبحانه وتعالى مقع شيئا أديك وقرافة هذا كلام حوحنا رسيم واي والله أعلى وأعلم جزاكم الله خير